xaggii la eegaba dhinacba dhanka kale ka daran ciidamadu waxay kow ka yihiin meelaha sagaalkaasi sannadood qaab dhismoodkooda aad moodo inuu ku dhacay isbeddel aan ahayn mid duleed ciidankan waxaa loogu yeedhaa ciidamada qaranka waxay u dhisan yihiin militari ahaan hase yeeshee tababarka ay helaan waa 6 bilood oo dhiboo ah waxaa tiradoodu ka kooban tahay 16,400 ilaa 17,000 inta u dhaxaysa ka hadalka arrimahooda waxaa loo yaqaanaa inay dambi qaran tahay taasi oo ah wax bulshada lagu disay si ay u aaminaan waa aag halisi ku xeeran tahay waxay ka caagan yihiin hadalqaadka istood waxay u yihiin isku dulnoolaanshaha wehelkoodu waa duruufaha ugu adag ee aadama ku nool yahay maadaama in xogtooda la baahiyaa ha joogtee soo hadalqaadku ka yahay mamnuuc waxaa loogu yeedhaa aagii madooba ama mugdigii dulmiga gabaadka u ahaa awood qaybsiga Soomaaliland iyo jiritaanka dheeliga ay adag tahay in dib loo soo celiyaa ee u muuqda isbeddel kiimikaad oo kale marka laga yimaado waxa halista ugu daran ka taagan tahay waa ciidamada waa run oo waa ciidan qaran hase ahaatee dhismahooda tiradooda xukunkooda iyo amarkooda waa mid aan hore cidi uga warhaynin miisaaniyadda sanad kasta ku baxda waa lacag ka badan 50 milyan oo dollarka Mareykanka waxayna mushahar ahaan u qaataan askarigiiba lacag dhan 840,000 oo shilinka Soomaaliland taasoo u dhiganta $82 oo kaliya intaynaan eegin duruufaha iyo dhibaatooyinka ciidankani la nool yahay oo aan bulshadu wax badan ka ogeyn aan ku horeeyo beeliga qaran ee maamul ilaa heer askari aan loo miisaanday tirada ciidanka qaranku celcelis ahaan waa 17,000 oo askari gobolka Sool waxa uu ku leeyahay gabi ahaanba 500 oo askari deegaanada Sanaag bari badan dhaxar hadaaftumayo laas qorayo ilaa ceelaayo waxay ku leeyihiin askar cadadkeedu dhan yihiin 480 askari oo 200 oo kamid aan shaqay awdal sida xogaha saraakiisha ciidanka dhexdiisa aan ka helayna ay sheegayaan askarta ka soo jeeda tiradoodu waxay u dhaxaysaa 2,000 ilaa 2,200 oo askari kolka laga saaro intaas 13,000 ee kale waa deegaanada loogu yeedho xilligan dhexda oo Hargeysa askarta ka soo jeeda ay kor u dhaaftay 7,000 oo askari ciidanka qaranku waxay leeyihiin 18 hoggaan 16 kamid ah iyo taliyaha ciidanka xukuumadda waxay ka soo jeedaan dhanka madaxweynaha kuwaasi oo kala ah hoggaanka gaadiidka hoggaanka taangiyada hoggaanka saadka hoggaanka hubka iyo rasaasta hoggaanka madaafiicda hoggaanka lacagta hoggaanka caafimaadka hoggaanka tababarka hoggaanka wacyigelinta hoggaanka taakulaynta iyo shidaalka hoggaanka aaga bari hoggaanka tababarada dibadda hoggaanka howlgelinta aaga dhexe qaybtiisa saddexaad hoggaanka sancada hoggaanka xiriirka iyo isgaadhsiinta hoggaanka qalabaynta gaadiidka ciidamada jananka ciidanka oo ah taliyaha intan oo hoggaan iyo 17,000 ee askariba xukuma ma jiro waxanti dhowr ciidana oo baadhis ku samayn kara lacagta gasha ciidanka iyo halka ay ku baxdo taliya taani isaga ayaa u ah taliya isu ah xisaabiye iyo hanti dhowre haddii la soo hadal qaado waxa ay ku doodaan sir ciidan baa dibadda u baxaysa wadamada caadiga ah taliyaha ciidanku waxa uu leeyahay oo shaqadiisu tahay hawlaha qorsheynta ciidamada iyo arrimaha la xiriira hawlgelintooda daga balse arrimaha xisaabaadka iyo maaliyadda ee ciidamada meel kasto ay ka jiraan gaar baa loo xisaabiyaa dhammaan wadamada hore u maray waxa xisaabta ciidanka ka shaqeeya dad shacab hanti dhowr dawladeed ayaa galoo xisaabiya halkan waxaa taliye ka ah taani qasnaji iyo xisaabiye taliyaha ayaa isu ah dhaqaalaha ciidamaduna waa midka taliyaha iyo 16 kaasi hoggaan ee halka deegaanka soo wada jeeda ay gacanta ku hayaan ciidanka waxaa ka dhex jira musuqmaasuq baahsan iyadoo aanay jirin kala madax bannaanaan dhanka awoodaha taasi oo gayaysiisa in askariga caadiga ahi noqdo dulmane lagu dulnool yahay halka madaxda sare ee militarigu ay yihiin kuwa sanad kasta soo saara milyaneero si khaldan sadbursi ee ku qaata malaayiin lacagtaasi kamid ah oo ay u horeeyaan dhaqaalaha direyska kabaha raashinka sanadkii tagana wuxuu ahaa kii ugu darnaa oo waxa mashaariicdaasi mid kamid ah qaatay wiilka uu dhalay madaxweyne Biixi
danka kale ciidanku ma laha wax xeera qaran kasta waxa uu leeyahay hab maamuus dawladnimo ciidamada qaranku maadaama ay yihiin hay'ad awood leh isla markaasina hubaysan waxa lagaba maarmaan ahayd inay yeeshaan xeer ay ku dhisan yihiin ciidamada Soomaaliland ma laha xeer ciidan sidaasi awgeed lama garanayo awoodooda waxyaalaha ka reeban iyo waxyaalaha u bannaan gutihis mooyaan lama garanayo kala sarreynta ama chain of command-ka ciidanka oo qeexan lama yaqaan sida ciidanka qaranka Soomaaliland loo galo lama yaqaan sida lagu galo lama oga sida askarta loo ruqseeyo waa aad mugdi ah oo lama taabtaan ciidamada Soomaaliland ma laha diiwaan waxa dhammaan dunsan hab maamulka iyo maamuuska ciidanka marka laga yimaado arrimahaas ciidanka Soomaaliland waxay qabaan dulmi baaxad leh ma leh goobo caafimaad waxayna u qurbaxaan dhaawacyo yaryar oo soo gaadha dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Tukarraq waxa lagu daweynayay isbitaalada dadka caadiga ah jiifaan waxa isku meel yaalay dadka rayidka iyo ciidamada ku soo dhaawacmay dagaaladaas shacabka caadiga iyo eheladooda ayaa u adeegayay oo biyaha iyo wixii ay helaan ugu keenayay isbitaalada markii ay waayeen cid ka daba timaada qaarkood halkaasi ayay daryeel la'aan ugu qurbaxaan waa la qariyaa kolka dagaal dhaco ciidamada ku dhinta oo kolkoodii horeba nolol adag ku noolaa kuwooda dagaal ku dhinta iyo kuwooda ku dhaawacma sidan ayaa sagxadda baabuurada waaraadka loogu wada raseeyaa حتى eheladoodu kama dayma sukaan meydadkooda oo deegaanka oo fariisin u ah ayaa xabaal wadareedyo loogu aasay sawirkan idin muuqda oo sarkaal ka tirsan ciidamada jiida hore magaciisana aan baahinaynin uu nala wadaagay waa dagaalkii Tukarraq waa askar dhaawac ah iyo kuwa dhintay oo sidan sagxadda u wada rasaysan ciidamada Soomaaliland waa warshad lagu naasnuujiyo cid gooniya iyo deegaana gaar ah halka laga ilaaliyo deegaanada kale deegaana gooniya ayuu baatirada ugu badan laga qora halka kuwa kalena laga ilaaliyo inay ku bataan deegaana gaar ah ayuu baadalaca oo darajooyinka hela deegaana gaar ah ayuu baadare walada gawaarida ciidanka lagu aamin halka deegaanada kalena laga ilaaliyo deegaana gaar ah ayuu baaridayaalka gaadiidka ciidanka deegaana gaar ah ayaa tababarada dibadda loo qaado sababtuna waa hoggaanka ciidanka ee taliyihii iyo 16kii hoggaan ee kamid ahaa 18 hoggaan ee ciidanka oo hal dhinac ka soo wada jeeda madaxweynaha talada hayaana uu yahay kan intan og misana wax shida ah aanay ula muuqan waxaa xusid mudan in ciidanku yahay awood siyaasadeed oo loo adeegsado mararka qaar arrimo la xidhiidha caburinta